ninkii wiilkiisa dilay ayaa loo keenay oo gacanta laga saaray kadibna waxa la yiri waa kanaha ama dil ama cafi ama diya ka qaado isaguna gacanta ayuu ku dhigay ninkii wiilkiisa dilay bal marka hore la daawo muuqaalkan wiil aan ka dilay waa ku wareejinay ka dilay waa ma santa saana xeer noo waa ma santa haday dhaawac tahay iyo haday dhimasho tahay waa ma santa dhacdadani waa dhacdo dhawaan dhacday laakiin ma aqaan meesha ay ka dhacday baraha bulshada ayaa aad iyo aad loo wadwadaa ninkan odaga ah ee maaragtay shaarka jaalaha wata ayaa gacanta soo qabtay waxa uu ehel leeyahay ninka wax dilay ee silsiladaysan ayuu ehel leeyahay kadibna waxa uu u keenay aabihii dhalay wiilkii dhintay Allahu naxariistee kadibna waxa uu ku leeyahay sidaad maqashaan waa karaha ninkii wiilkaaga dilay waxaana xeer noo ah hadda kadib haday dhimasho tahay iyo haday dhaawac tahay ba sidan ba xeer noo ah saana xeer noo waa ma haday dhaawac tahay iyo haday dhimasho tahay waa ma haye xeerku waa maxay yaani hadii qof laga dilo oo adiga laga dilo ama annagana laga dilo ama adiga kale dilo kolba waa laba beelood sidaan ba xeer noo ah in aan isku keenno oo hadii qof dambiile ah oo xagayga dambi ka galo aad ii soo qabato hadii qof dambi xagaaga ka galana aad ii soo qabato labada nin hadalkoodu waxa uu muujinayaa beesha dhan dabcan sidana xeer noo ah waa arin aad iyo aad u wanaagsan aadna u fiican run ahaantii waana dhacdo kamid ah dhacdooyinka naadirka ah sababtoo ah qofku marka uu qof dilo badana waxa dhacda in uu ku dhex dhunto dadkii uu ka dhashay inuu ku dhex dhunto cidii kalena ay xaqoodu waayaan cid soo qabatana ay waayaan haddaba xeerkani waa xeer aad u wanaagsan waana xeer diini ah run ahaantii okay ninkan odaga ee lagu wareejiyay wiilka dilay wiilkiisi waxa uu xaq u leeyahay inuu disho oo toogto waxa uu xaq u leeyahay inuu diya ka qaato waxa uu kale xaq u leeyahay in uu iska cafiyo taas iyana khayr badan waxa kula wadaagayaa muuqaal kale oo muujinaya nin oday ah oo wiilkiisi la dilay kadibna waxa weeye la hor keenay tiirkana geystay markuu tiirka geeyay ee la raba in la toogto kadibna uu isagu geedkii ka furay bal ila daawo odayaasha iyo nabadoonnada iyo uqaasha meesha isugu timi iyo dawladda ninka marxuumkii dhintay wiilkaygii dilay anigu saaka israacin maayo labada nin waxaan xariga waa ka furaya waxaana doortay suldaanka ereyadii uu yiri haddaba ninka xariga waa ka furaya bismillaahir rahmaanir rahiim waa maqlaynay hadalkii odaga ka soo yeeray oo quruxda badnaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa kii hore oo dhintana Allah u naxariisto gacantaanu u gelinay waa u dhiibnay mahag hagin geedka hadii lagu soo xiray asaga ka furay Cabdullaahi inta uu yeelay oo aad wax xariga ka furana hadii waxa la leeyahay wuxuu yiraahdaa abaalgudkeedana waa ogolahay isagana Ilaahay baa mahad leh uga mahadcelinaynaa qabiilada jirka Allah ka dhigo assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh sidaasina waxa isu bedelay jawigii hore ee qisaasta ee loo madlanaa wax walbana waxa bedelay aabaha dhalay wiilkii hore loo dilay oo qaatay mid kamid ah saddexda wado ee ay banaysay diinteenu inay u banaan tahay qofkii qof laga dilo okay dhacdadanina waa dhacdo kale oo iyaduna miisaankeeda leh ninkan aad arkaysaan tiirka ku xiran waxa uu dilay oo uu toogtay ninkan odaga ah wiil uu dhalay ayuu dilay hadii uu dilay kadibna xaq waxa uu lahaa in loo soo qabto waana loo soo qabtay oo tiirka ayaa loo geeyay markii tiirka loo geeyana odayga go'aan buu qaatay waxa uu qaatay go'aan ah in uu ninkan iska fasaxo isagoo dili kara in uu iska fasaxo diyana uu ka qaato waxa uu leeyahay waxa weeye ma isku darayo labada wiil raganimo ninkan wax dilay hadalka ka hoos baxay ee aha inuu san qof dilin muslima islaam inuu san dilin ayaa loogu jawaabay waxa la yiri warniyo adigu hadda doqon noqotay oo aad ninkii hore dishay anigu doqon ma noqonayo adiga anigu ku dili karan ku deys soo waxaad garata ma dhacdadani waa dhacdo hore oo sanad ka hor dhacday laakiin dhacdadan bay u dhowdahay maajgareynaysa sababtoo waxa weeye in loo soo qabtay qofkii maalmihii waayadii ugu dambeeyay sanadii ugu dambeeyaba dadka Soomaaliyeed qofku markuu uu qof dilo waxaan arkaynay in loo soo qabanayo qofkii oo xaqiisa uu qofku ka gudanayo qaar la tooganayo qaar waxa weeye diya laga qaadanayo qaar la iska cafinayo waxaas oo dhan baan arkaynay laakiin dhacdooyinkani waa dhacdooyin yani ku dayasho mudan amaanka iyo bulshada qaab
qaabka ay maaragtay u hagan yihiinna wax badan ka bedelaya marba munaasabad ay leedahay marka horta waxa asal ah qofka dambiilaha ay qofka kala dilay in la soo qabto ayaa asal ah markii la soo qabtana qofkii xaq ku lahaa ee waalidka la hor keenay la yiraahdo waa kana ninkii dambiga ka geystay haddaba waxa ku sameyn lahayd ku sameyn taasi waa asal qofku markaas xaq waxa uu leeyahay inuu dilo inuu deysto oo cafiyo iyo inuu diya ka qaato hadda ninkan odaga ah hore wiilkiisa lagu soo wareejiyay leeyahay sidaan baa xeer noo ah dabcan muuqaalku intaas uu ku ekaa wixii ka dambeeyay ma aanan arkin ma dilay ma deystay ma diyo ka qaatay ma ogin laakiin waa arin aad iyo aad u wanaagsan oo ah wada furaysa in qofku uusan qof iska dilin og yahay hadduu qof dilo ama ha ka dheeraado ama ha u dhawaaday in la soo qabanayo sharcigana la geenayo go'aanna dadkii uu dambiga u geystay ay ka gaarayaan go'aankaasna uu wuxuu rabaa noqon karo haddaba dhacdooyinkan mid kasta ay munaasabad gooniya baa leedahay haddii bulshadu ay tahay bulsho aad iyo aad isku leynaysa oo in la kala celiyo la rabo waxay munaasib ku tahay in waxa weeye la kala xeerto in la isdilo qofkii qof dilay in la dilo in la kala xeerto ayay munaasib ku tahay haddii bulsho degan oo qaladaad laba qof u dhaxeeya ninbaa nin dilay ma aha wax beela u dhaxeeya ninbaa nin dilay ninkii uu dilay ninkii wax dilay waa la soo qabtay taasoo kala iyadoo munaasabadeedu waxa weeye qof carooday weeye ma aha qabiil carooday oo dagaal abaabulay oo ma aha taasoo kale waxay ku haboon tahay laftigeeda in qofka ama la iska cafiyo ama diyaal laga qaato ay ku haboon tahay laakiin qisaastu markastaba waa miisaan culus oo muhiimadiisa leh sababtoo ah qisaasku waa nolol sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay hadii uu jiro sharci degsan oo ah qofkii qof dilaahay malahan wax kale malahan ujeedo kale oo uu ku badbaadahay ma jirto hadii ay imaado meesha qof dil lahay ma jiro sababtoo ah ma jiro maanta qof u bareeri kara inuu dhinto hadduu qofku labada gacmood iyo labada lugood uu ka go'an yahay calooshuna ay soo jeedo dhaawac ku dhacay dartiis qofkaas wuxuu jeclaan lahaa inuu noolaado uu jeclaan lahaa nolosha yacni sida loo rabo qofka sidaas nolosha u jecel iyo dadka sidaas nolosha u jecel ma ku dhacaan dhimasho ay og yihiin ma ku dhacaan hebel baa dishay laasima waa lagu dilay kuma dhaco ha laba beelood oo la isaga taag waayay ayaa waxa ay kala xeerteen waxa weeye in la isdilo oo qofku hadduu beeshaas beel ka mid ah beeshaas qof ka mid ah uu soo dilo uu sabadbaadeen oo walaalkiis intuu soo qabto tiirka geynayo ama abiis aad ayeen isku leyn jireen labadii beelood akhiran waxa ay noqotay marka labada mooryaan ay rabaan inay isdilaan labada mooryaan inay isdilaan oo iska argoostaan marka ay rabaan haddii laba qoray ay wataan ama midiye ay wataan in ay inta qoryahooda iyo midiyahooda dhigtaan hore isku soo galaan oo feer iyo waxay kala isku sameey karaan juuga isku sameeyaan sababtoo ah sabab uu ku badbaadayaan bajirin aad iyo aad arinkani marka waa arin aad iyo aad u weyn oo u fiican umada Soomaaliyeedna dan u ah in qofkii qof dila la soo qabto waalidkiisna uu go'aan ka gaaro aad baad mahadsantiin saaxiibayaal dad nagu subtaa muuqaalka like saar nagu soo bir dad nagu soo biro salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh